بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوة قدرين تيقيبي نغمضان فيا والسومالي تي في waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena awoodsiinta naafada toddobaad walba maalin walba isniina aad ka daawataan via والسومالي تي في barnaamijkeena toddobaadkan waxaa marti noogu ah Raxmo Sheekh Cilmi oo ah xildhibaanad golaha deegaanka degmada Holwadaag ahna wakiilka naafada degmada Holwadaag ee gobolka Banaadir barnaamijka intaan ku guda jirno waxaynu ku qaada dhigi doonaa caqabadaha ay wajahaan dumarka naafada ee Soomaaliyeed barnaamijka waxa idin soo saara halkan idin kaga soo jeediya anigoo Ismaaciil Maxamed Cali halka aad ka daawanaysaan waa VOA Somali TV mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena wasiinta naafada waaga marka hore waxaan rabaa inaan muuqaal baahiyaha VOA Somali TV aan ku soo dhaweeyo Raxmo Sheekh Cilmi ku soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلها برنامج كان awoodsiinta naafada waa maasan tahay Raxmo Sheekh Cilmi waana kaga mahadcelinaynaa sida aad u soo ajiibtay casuumaadda barnaamijkan su'aasha ugu horeyda waxay noqonaysaa waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee dumarka naafada ka haysta dhanka bulshada bismillaah waa mahadsantihiin idaacadan TV-ga oo soo dhaweeyay anigoo ah Raxmo Sheekh Cilmi waxaan ahay wakiilka degmada Holwadaag أنا حلبان قلت ديجان هذه mahadsantihiin horta hore awood يعني maxay caqabadaha oo ka haysto dumarka bulshada waxa kamid horta hore inay bulshada ku dhex noolaa karin naafada oo caqabada koowaad waxa waaye abuse mid labaadna waxa waaye abuse oo yani caatin sida qofkii oo lugta la jiiso balaqo la dhaho qofkii oo indhaha la indhool la dhaho qofkii oo dhagaha la dhagool la dhaho discrimination amal lagu soo binayo faquuq gaar ah ka waran marka saameynta ka waran ay ku leedahay dadka naafada markii erayada noocaas oo kale la adeegsado qalbi jab ninkan aan magaciisa ilaahay aaminsaneen qalbi jab ku dhacay bulshada inuu ka dhax baxo noqonaa inuu gooni isku taag noqdo noqonaa marka inuu caqabad ay tahay naafada ayuu dareemaa dhanka waxbarashada marka aan u imaano maxay tahay caqabada ka hor istaagta in ay helaan waxbarasho tayo leh dumarka naafada dhanka waxbarashada waxaa kamid meeshii oo dheer qofkii oo naafe sida qofka adoo kale oo wiljar wato oo bacaadka aan ka bixi karin jaranjaro meesha taalo oo aan kori karin ilmihii haday ciyaar tagaan naga fadhiisa jiisa tahay la yiraahdo macalinka dadkii xayiga ahaa wax bari la ahaa adoo naafaas wax ku bari karaa qofkii oo aragala wuxuu rabaa maxay farti bareelka inuu wax ku barto ma laga helo wadankeena sida ugu badan iskoolo oo maxay shakhsiyaada haystaan sida alnuur oo kale oo hormuud ay koow bilowday albasiir oo kale albashiir oo kale marka wixii hore horta waa laga soo gudbay maanta laakiin hadda hore muu horumarsano ma wada yaalaan wadanka dhan ma wada yaalaan muqdisho bis laga helaa marka halka kor loogu qaadi karo waxbarashada dumarka waxbarashada dumarka horta marka horeba dumarka naag wax baratay jika u dambaysaa horta hortaal midda kale dumarkii oo naafada ahaa dadka xayiga ahaa wax loo weysan yahay shaqo oo jaamacada dhameeyeen adikoo naafa maxaa qaban kartiina hortaal hadii PhD ay wataan xataa naafanimo lagu riixaa shahaadadooda haday keensadaan haday xirfado la imaadaan haday wax walba la imaadaan naafa tahay meel ku taalo ku midda labaad sharcigeena oo maxay ahayd qaramada midoobay CRPD-ga oo Soomaaliya ee saxiixday oo hadana madaxweynaheena oo saxiixay oo baarlamaanka saxiixay hadana ma hirgelin oo ma shaqeeyo 5% aan nugula taargareey anagoo 5% ka badan hadan 5% hadan aan haysan sida daraado kale 12 qofood ay GSB u gashay xildhibaanimo oo min ninkiiba 200 laga qaaday adigu xildhibaanada golaha deegaanka ee ku soo baxay ka mid tahay maxaa ku sahlay waxa ay sahlay qoondada xiran ee dumarka 12 rag
anaa dumar ka ahay g s b aan ka tartanay haddaan ka tartanayna qoondo oo loo xiray naafada ma jirin qoondada dumarka loo xiray 30% aan kaalinta 3aad kasoo gala aniga saas aan naafadana aan ugu taaganahay qoondada dumarkan ugu taaganahay aad ma maasan tahay maxay tahay marka caqabadaha ka haysta helitaanka dhanka shaqada marka loo fiiriyo iyo horumarka xirfadeed dumarka naafada horta hore xirfadaha waa badan yihiin sida maxay haato cunto karin oo kala jirto waxaa jiro magaciisa harqaan oo kala jiro elan saar oo kala jiro xirfadaha wajiga xataa caqabadaha waxaa waaye fursad looma siiyo naafo waxaan xasuustaa hadda RCRC in aniga cunto karin ka gale 5 qofood oo naafo ana la siiyay 5 qofood oo naafo maanta Soomaaliya aad taqaanido ninka nool naafo dhow 5 qofood maxay ka tari kartaa waa gartay war marka idinka wacyigelin dhinacyadaas oo kale aad ka sameeyaan ma jirtaa wacyigelin badan aan soo binay aniga horta waxaan ololahan soo bilaabay 2014 ilaa iyo taariikh maanta maalinba heer meel soo istaagay mar waxaa noqday ururka maxay ahayd ururaan suubiyay ururkayga waxaa la dhahaa awoodsiinta haweenka naafada aabal dhahabo magaceena ka waran marka sidee loo dhiirigelin karaa dumarkaas naafada shaqaaleysiintooda kale waxaa loo dhiirigelin karaa in wacyigelin badan la suubiyo waxaa loo dhiirigelin karaa in hay-adaha NGO-ga iyo localka inay isbiirsadaan meelo xirfado lagu barto ee dumarka siiyaan dhaqaalaha ugu horeeyo oo la taabagelinayo waa meel xirfad lagu barto in la suubiyo maadaama hal doorkii dumarka naafada aad tahay qof haddana wakiilka naafada degmada Howlwadaag aad tahay arrimahaas oo kale isku dayda inaad kala fariisato hay-adaha iyo dadka ay qusaydo haddii aad kala fariisatay maxaad kala kulantay hay-adda waxaan kala fariistay RCRC hay-adda waxaan kala fariistay tan maxaa daryeel bulsho DPG gudoomiyaha degmada kala fariistayo saaka ugu dambeysay aan kala hadlayo waxaan dhahay shaqaalaha niiro inay naafada ku jiraan loo baahan yahay waxaan kala kulmo waa idin qabaneynaa oo noola qabaneyn waa idin qabaneynaa noolama qabanayo ninka u tagtid wuxuu ku dhahaa waa idin qabaneynaa haddana waxba gacan laguma hayo hartaan mise dabagal baad ku sameeyaan markii ay balanqaadyada noocaas oo kale idin sameeyaan dabagal ma ku sameeyno sababtoo awoodeeda ma lihin garsoorkina ma joogo wadankaanito garsoor ma lahan cadaaladii hadday shaqay lahayd fulin ma lahan cadaaladda waa jirtaa la dhaha wasaaradda cadaaladda waa jirtaa haddana fulin ma lahan fulintii oo garsoorka meesha ka maqan aad baad umahadsan tahay Raxmi Sheekh Cilmi weli qaybaha dhexe ee barnaamijka awoodsiinta naafada ee VOS Somali TV ayaan ku guda jirnaa iminka waxaan u imaanayaa dhinacii guurka caqabadaha kaysta dumarka naafada maxay yihiin caqabadaha ay kala kulmaan guurka dumarka naafada wallahi caqabad badan ay kala kulmaan oo midda ugu horeysa aan ka duceysta aan ku guursado waa gartay taas aniga qabatayba waa gartay midda kale naag naafa cunugba ma ku hay karta ma ku qaadi kartee sidee yeeli qofkii xataa hadduu qoftii la saaxiibo meel la tago waalidkii caqabad ku noqonayaan mideeda kale haddana waalidkii oo gabarta dhaleen cid ku guursanaysa malahane nin qasabay ku darayaan haddana waxay ku suubinayaan maxay heto dumarkii oo ayaga lamid ahaayeen oo isku mid ay ahaayeen ala kala horumarina qofkaan naafo waaye maxay qaban kartaa indhahay laadahay dhagahey laadahay maxay hato ilmaheeda ma haysan karto meel u taalaba hadday cunug dhasho xataa ma haysan karto Raxmi Sheekh Cilmi sidee marka bulshada loogu bedeli karaa aragtida guurka ee dumarka naafada ay ka haystaan aragtiyaha khaldan hadda waxaa bilaabatay guryasamo oo 5 naafa iyo 5 nin ay 5 naaga isku darayso oo kharashka iyada bixinayso iyada maxay heeto guriyihii kireynayso wixii oo dhan isku abaabulayso 5 sano qabanayso guryasamo ilmihii naagii nimanka isku dareen ilmahoodii 5 sano jir waa hadda
waa bilaabatay caqabadii badneed hadda waa hartay laakiin sidii loogu talagalay uma saarin oo dadka ma baraarugsano wacyigelin u baahan yihiin waxay u baahan yihiin magaciisa isku dhimrin waxay u baahan yihiin watacaawanu cala al-ismi cala albirri wattaqwa walaa tacaawanu cala al-ismi waa mahadsantahay raxmo sheekh cilmi dhinaca qoyska ayaan u imaanayaa ka waran waa sidii taageerada qoyska gabdhaha iyo sidoo kale dumarka naafada qoyska aniga qoys ahaan hooyaday allah u naxariisto aad iyo aad ayay dadka kale iiga hormari jirtay naxariista janno allah siiyo aniga caqabada horta hore oo gooni ah lama kulmin laakiin caqabada waa jiraan aniga waalidkeyga iyo walaalkeyga garabka iga taagnaa jireen biyaha oo tubada laga doonaya xataa waa lii keeni jiray laakiin fadhigaa wax walba ku qaban jira ani alaabtaa dhaqi jiray wadarkaa kari jiray wax walbaa suubi jiray anoo 2 sano jiraa aniga lugtaan beele maantana inay qof iga horeysa maahane qof inay iga dambe aan ka dambeeyo uma maleeyo qof inay iga horeysa uma maleeyo marka alxamdulilah shukr rabbil caalamiin laakiin caqabada waa jiraan qofka naafo waayo iskool looma diraayo waalidku way dhahayaan ama la soo dilaa qofka ama meel lagu ridaa in dhool waayo ma soco karo qofka naafada midna waa jirka midna waa aragga midna waa dhagaha aydaaba naafada qabiilo badan u kala baxdo mid oo tiisa ma jiro oo qofkiiba dhimir dhanba aan lahayn oo hadii qof qabsado aan ka fuqin oo qaylinayo oo tiisimkaas oo kala jiro marka naafada mid maskaxda gashaa mid lugaha gashaa mid gacnaha gashaa mid indhaha gashaa midna dhagaha gashaa waa 5 qabiil insha Allah awoodaha dumarka naafada marka aan u imaano maxay yihiin awoodaha iyo kartida dumarka naafada ee ku duwan awood weyn ay leeyihiin dumarka naafada aad iyo aad horta qof ee la dagaalaan qof naafa kama magaciisi ahalkeena qofkaas inuu qofkaas dilo ayuu jecel yahay kamisl hada ani soo qaat qof dumar ma soo bareeri karo anoo taagan moogi anoo fadhiyo qof dumar agaarkeema soo istaagi karo xataa raga ay soo beegmi karin waa gartay ka waran dhinaca horumarka markii loo fiiriyo kartida gaarka iyo awoodaha gaarka ee dumarkaas ay leeyihiin maxaa noogu sheegi kartaa dumarka naafada aniga hooyo waxaan ahay oo 10 qofood dhashay waa gartay maantana ilmahayga ilmaha ka horeeyaan maahina ilmaha ma ka dambeeyaan mid ay dhibto oo cunuga korkeyga markuu ku hurdo inaan la istaago sariirta aan saaro ay dhibayso maahina cunugeyga waa u dhaqaa waa u dhigaa waa wax walba u suubiyaa waa korsadaa cunuga ugu yaraan cunugeyga 8 sano jira cunuga ugu weyn 27 sano jira marka alxamdulillah waa ii koreen waa soo gudbay heer aan xataa aan ku ooyo gabartaada ugu weyn 10 sano ilaa ku gaarsii ilmaha ku qaade aan gaaray marka caqabado badan waa jiraan laakiin sida ilaahay qof walbaba oo u gudbisiyo man huwa sharafu wa huwa sharifun ninka naftiisa sharfo ayaa shariif ah aad ma santahay qaybaha dambe ee barnaamijkeena ayaan ku sii shaqeynaa door noocee ay warbaahinta ka ciyaari kartaa wacyigelinta arrimaha noocan oo kale dumarkii haddii guurka ahaan leed waxbarashadii maaragta noloshiisa guud door noocee dumarka naafada ah waa dumar karti badan waa dumar magaciisa xanuunka jiro og waa dumar magaciisa karti leh oo shaqeysan karo dhaqo karo dhisa karo cunugoodana tababar fiican siinayaan waxaan midda koowaad idaacadaha waxaa u sheegayaa inay ololo badan bilaabaan oo wacyigelin badan suubiyaan waxaan kaloo u sheegayaa shirkadaha oo sida hormuud oo kale maxay hato inay ku soo darto masjidada oo ayda hadda soo dirayso isbitaalada oo kale soo dirayso dadka naafada waa in la garab istaagaa oo garabka haddii laga istaagana wax badan ee tarayaan qofka naafaa cunug naafaa ma dhalaayo moogta cunug xayi oo dhalaa laakiin qofkii oo cunug xayi dhalaayo meel haddii lagu iloobo dhalitaankaas meesha maxaa ma ku baabaa ama ma ku baabaa qofka waa in la garab istaagaa qofkii guur rabo la caawiyaa qofkii magaciisii guursaday ilmihiisa lala koriyaa beri ilmahaasaa wax tarayaan ugu dambeyn maxay tahay fariintaada ku aadan dowladda iyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dowladda horta waxaaba ka saaran xil weyn
midda koowaad dowladda xilaa ka saaran maxay dowladda baarlamaan ha noqoto wasiir ha noqoto senataryaal ha noqoto degmooyin ha noqoto naafada xilaa ka saaran sida adduunka oo u dhaqmo adduunka naafada si loola dhaqmo waa inay naafada Soomaaliyeed ula dhaqmaan horta taas fariin waa aniga aan diraayo bulshada noogu sokeyso Masar Kenya Uganda naafada si loola dhaqmo Afrikaan nahay Soomaali Afrikaanka adduunka kale ma gaarin karne Afrikaankan hadda anaga la mid nahay say u dhaqmaan Masar kaare leeyihiin maxay heeto naafada kaarkaas baawar ku raacaan kaarkaas shirkadaha ku tagaan kaarkaas cunto ku cunaan dawladeena ka xil saaran tahay aad baad mahadsantahay Raxmo Sheekh Cilmi oo nagala qayb qaadanaysa ay ahayd barnaamijka awoodsiinta naafada ee VOS Somali TV guud ahaan barnaamijkeena awoodsiinta naafada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxa idin soo saar halkan idin kaga soo jeediya anigoo Ismaaciil Maxamed Cali dhanka kaamirada iyo farsamada waxa iga caawinaya injineer Faysal Cabdullaahi inta barnaamijkan midkiis xiga inuu ku kulmi doono baada VOS Somali TV oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo